iskaashatada horseeda ay ku midoobeen tiglayaasha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta deeq lacageed oo cadadkeedu dhan yahay $3,000 ku wareejiyay dowladda hoose ee magaalada Burco. Deeqdan ay ugu talagaleen wadada isku xidha xabaalaha iyo magaalada Burco dhexmartana xaafadda Hodan Qayl ee magaalada Burco. Wareenba waxaa halkaasi ka hadlay duqa degmada Burco Maxamed Cabdi Yuusuf Muraad iyo xildhibaan Kaysi oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan lagu kaliftay iyo ururkaatiga oo maanta halkan aan kaga wareegi doono lacagtii ugu horeysay ee ay ugu deeqeen wadada waxaan lagu kalifay inaan wadada xabaalaha gaarsiino marka roobku ay daan meydkii waa la gaarsiin kari waayay xabaasha meydkii waa dhintay waana la gaarsiin kari waayay xabaasha waxaan aad iyo aad ugu codsanaynaa inay hawsha gacan weyn naga siiyaan maanta laba xaalo halkan aanu u fadhinaayo wadada 2 kiiloomitir 3 kiiloomitir dhamaystirkeedii xabaalaha aanu gaarsiinaynay inaan dadweynaha reer Burco reer Soomaaliland oo sheegno oo wixii ka qayb qaadanaya ka qayb qaataan lambarkoona ay ka yihiin dadka xaafadda Hodan la yiraahdo aanu dadweynaha u soo bandhigaynaa Soomaaliland reer Soomaaliland gudaha dibadba meel kasta ay joogaan dadkii meedka ah dadkeenii markuu dhinto oo go'o ee xabaalaha lagu sii wado dhibaato weyn baa laga kulmaa wadada ayadoo markay biyuhu fadhiistaan gawaadhidu ay gasho dibadna meedka dhibaato gacmaha lagu qaado marka waxaanu leenahay 2 kiiloomitir waanu wadaynaa xabaalaha gaarsiinaynaa haddaanu nahay xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Burco waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha sida ay u qabtaan dadka kale ay wax u qabsadaan ee Hargeysa ee community-ka ay u bixiyaan ee ay wadooyinka uga qayb galaan inaan nagala qayb gashaan oo wadada 2 kiiloomitir aan la dhamaystirtaan hadii Ilaahay ka dhigo. sidoo kale waxa ayna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xaafadda Faarax Omar Saciid Cali Dacar iyo injineer ka socday shirkadda Delayte Construction oo iyadu hirgelinaysay wadadan isku xidhaysa xabaalaha iyo magaalada Burco. aan fariin uga dirayaa dadweynaha xaafadda ku nool Hodan inay si mugla uga qayb qaataan wadada dhexdeena marta ee ilaa xabaalaha tagta waa sabiil waxa weeye fi sabiilillah oo wadada cid walba oo furan tahay waxaan dhammaan dadweynaha ka codsanayaa reer Burco inay ka qayb qaataan salaam ku dhiirigelinaya shacbiga reer Soomaaliland gaar ahaan reer Burco wadadan horta waa wada important marka soo arag waayo aniga maayirka ma doraata oo israacnay 6 baabuur baa ku jiray xabaalaha iyadoo roobladii hadda niisna ahayd marka xasanaad badan oo kulli waa la qaadanaya insha Allah marka inay ku dhiiradaan oo ay bixiyaan inta uu maayirku sheegay hadii daamig tahay oo asalka tahay iyo hadii carqalad tahay si kastaba ha ahaatee wadadan ayaa waxa ka mid tahay mashaariicda ay dowladda hoose ka hirgelinayso magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Saciid Salbaan Nuur, Radio Hargeysa, Burco.